صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صمنا ذيو فرض كأوغا فقراء ذا سكذا سيا صمنا ذيو فرض كأوغا فقراء ذا سكذا سيا سقذ دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا سقذ دحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان 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 كريم رمضان 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 كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة الكوسة هذا برنامج كيني ويدع علماء. إذا هم بمركه هذا دمانتين وحلنا هاي رمضان كريم رمضان مبارك. دعوة البرنامج كينا حعاونين وقع السمن فضيلة الشيخ الدكتور عيسى محمود وحلقات كهرنا قيب كها مواضيع هرنا كلها برنامج كينا ويدع علماء. نجوهرين دكتور كدمانتين بإلوسو دوية دكتور كوسو دو برنامج ويدع علماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شاهدين ودوي. شكرا بارك الله فيك دكتوره. داوديال عاوي برنامج كينو waxaa ka hadlaya ku sugnaanshaha diinta islaamka maadaama waa dad muslimiin ah waqti adagna lagu jiro bal waxaan markaa noo muuqatay bal in waqtiga iyo diinta iyo ku sugnaanshaheeda aynu ku jirno maadaama qofka waqtiyada adag iyo waqtiyada fudud ay saameyn ku leedahay waqti mawduucaas oo faahfaahsan oo kala baxsan دكتورك أيانو عاود دمانتين به مرتبو نحني إستجا أيانو كسوق دونا دكتورك مركله برنامج كاس أن كسر دوينه دكتور تفضل. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين. الله سبحانه وتعالى يا مهضل نقول الله دست إسلامك إيمانك إن قد أدومي إلهي أمر في سقاطي وحكر بين كتري diinto lagu sugnaadaa waa arrin aad iyo aad muhiim ah maradan ka hadana ku sugnaasho diineed waa qof muslima oo diinta Allah subhanahu wa ta'ala u siiyay inuu ku sii adkaysto oo sii xoojiyo nimadeeda saddex mixwar ama saddex chapter baan ku soo koobi doonaa chapterka iyo mixwarka koowaad ama qaybta koowaad waa ahmiyadda ilaahay in diinta lagu sugnaado diinta lagu sugnaado waa wax ka raadinayo qof kasta oo muslimihi oo run sheegaya oo doonaya inuu maro wadada markaa toosnayd hadaan basharka ka hadalo qofkasta wuxuu aroorti u kalaha qoto daruurigu waa u kalaha qoto daruuri waxa bidaan ku adkaan waxaan laga maarmi karin sidoo kale qofku waxa laga yaabaa inuu kula dadaalo ubadkiisa iyo caruurtiisa inay wax bartaan oo goobaha waxbarashada ay tagaan tu diineed iyo tu kalaba waxay u arkaan dadku inay tahay waxyaalo asaasiya waxa ka muhiimsan inuu qofku diintiisa ku sugnaado oo diintiisa ku adkaysto waxyaalaha muhiimka markaa ka mid tahay diinto lagu adkaysto oo qofku ku sugnaado iyadoo markasta looga baahan yahay xilliyo gaar ah ayaa hadda loo sii baahan yahay markaynu eegno xilliga maanta oo kale mujtamacaadku ay marayaan xaaladda marka muslimiintu ay ku nool yihiin oo xilli adag ah inuu qofku markaa oo aynu marayno 1440 waxyaalaha xilliyadan oo xilliyo iska culus ah inuu qofku muslimkii diintiisa markaa waxyaalaha keenaya ka mid tahay in laga hadlo oo lagu baraarujiyo waxa keenaya oo iyaduna muhiim u tahay inuu qofku diintiisa ku sugnaado fitanka kala duwan ee caalamka markaa ka jira shahawaadka waxay naftu doonayso ama muqriyaadka qofka dhiiri gelinaya iyo shubuhaadka qofka lubinaya ee baadiyeynaya oo ilaahay iyo garab markiisa oo markaa wax kale uga dhigaya ayaa keensanaya
dhacdooyinka faraha badan leh oo aynu arkayno dad fara badan oo muslimiin ahaa oo diintii dib uga laabmay ama markaa ka noqday oo ciribtooda dib ugu laabmay ayaa keenaya ahamiyadda mawduucan iyo ciwaankan uu leeyahay in la xoojiyo la tilmaamo waxaa kaloo iyaduna muhiimaddeeda oo keenaya ku sugnaanshaha diintu wuxuu cilaaqo la leeyahay qalbiga walaalo waxa weeye qalbigu waa meesha markaa u muhiimsan weeye nabiga wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qalbigu inuu yahay inuu isroorku badan yahay sida dheriga oo kale dherigu marka biyuhu ay karaan intaas jir bay isrogaan saas oo kale markaa qalbigu weeye taasaa keensanaysa in ay la tilmaamo ahamiyadda ay leedahay ku sugnaanshaha diintu waxaa kaloo la xoojinaysa nabigu inooga tilmaamay aakhiru zamaanka inay imanayaan fitan iyo dhibaatooyin uu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam alqaabidu calaa diinihi kalqaabidi cala aljamr qofka diintiisa haystaa inuu la mid yahay qof dhuxul haysta haddii dhuxul gacanta lagugu rido dee inaad haysatay haddaad tuurtana waad dil la-aan haddaad haysana waad gubanaysaa khatartaa marka ay leedahay yaa tilmaamaya ahmiyadda markaa uu leeyahay waxaa kaloo loo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya in aniga marka la cibaadaysto harjiga waxaa lagu fasiraa saddex macno ku fasiraa culimada muhiima harjigu isdhexgalka siyaacu waa fitanka akhir zamaanka imanaya waa dilku markuu bato harjigu marka waa kii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasi alharju wama alharju qaala alqatl markii la weydiiyey marka alcibaadatu fi lharj ka hijratin ilaya oo hijradu ajir fara badan bay lahayd dadka hijrooyana way yaraayeen akhir zamaanka diintoo la haystaana ajir fara badan bay leedahay dadka haysanaya ku adkaysanayaana waa dadka la tilmaamay leeyahay alqaabidu calaa diinihi kalqaabidu cala aljamr qaybtaas waa qaybta koowaad ahmiyadda ay leedahay ku sugnaanshaha markaa dib qodobka labaad waxyaalaha jira qofka ugu kaalmeynaya inuu diintiisa ku sugnaado oo aw haysto oo markaa uu qof asalkiisa markaa iyo diintii haysta inuu markaa u noqdo qodobada inaga soo koobayna waxaa ka mid ah ku sugnaanshaha diinta qofka ku xoojinaya inuu qofku la noolaado qur-aanka kariimka xarigii ilaahay ee adkaa nuurkii markaa iftiimayay qofka qabsada ilaahay ku ilaalinayo qofka raaca ilaahay u badbaadinayo qofka ugu yeedha wadada toosan ku hanuunaya inna hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير قرآن كان وحكو هنونيا تي توصل بدني وحكو بشارين يا ضدك المؤمنين تا وناك يعملك صالح السمينية إلى أجر الثواب فربنا كإليه قرآن كأورنا الله هذا ودستور كي كون كان لكينوي لما نقف وحبه نايو دن أي مركز يكينيا لفتي سامركا كدقيس سادراديد با علم نفسها مسكولوجيا تحلو يقام qofka markaa in la daweeyo waxa ugu muhiimsan qalaqa iyo walbahaarka iyo deganaansho la'aanta qur-aanka aasaaso ka wasiilada koowaad oo sugnaanshaha keenaya qofka muslimkii waa inuu noolaado qur-aanka kariimka markaa la noolaado qodobka labaad oo ah xoojinaya ku sugnaanshaha diinta waa ku dhaqanka shareecada qofku sharciga ku dhaqmo oo camalka saalix markaa la yimaado ilaahay wuxuu tilmaamay يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي وحكسو غيا كو إيمان كله هذا الكيس سقنا الدنيا دو يا آخرة الإمام قتادة رحمة الله عليه يا وحولي أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح الدنيا دو وحكسو غيا خير يعمل كوناكسن وفي الآخرة في القبر قبر يسأله يبقى كسو غيا نبي راح كسر حديث القدسي لا كورنا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما زول يا أضون كيو إنه أنا يجسر دوّاد الصناياسة لا أن كجل هذا حديث صار إمام البخاري وحنا بكسرناتين ويدي سايس الترمذي غير كيما صاري من ثابر على 12 ركعة وجب له الجنة عمل صالح بكمتها التزام شرعي إلهي والسنن كي قفك الصبر أما الصبية لم يتم ركعات أو الصنع وصلاة فرض كما والسنة يلا صعدة رواتب أنو نقانا جنة السنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أفر طورك كورهية لبا طورك كدنبية لبا مغرب كدنبية لبا عشاء كدنبية لبا الصبح كورهية كارها بشن بركيسر هي رمضان قفكم مركز كارا إنو إلاليو سننك هي ثوابك مركز إليه صلاة هاسي qodobka saddexaad oo tilmaamaya wasaa'ish xoojinaysa inuu qofku ku sugnaado inuu qofku aqriyo tadabbur qasas al-anbiya maadooyinkii anbiyada
inuu diraaseeyo oo u barto isagoo u kurgalaya kuna dhaqmaaya qaar ka mid ah soo qaadanayna nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wassalaam dab baa lagu tuuray qisada nabi ibraahim dabka lagu tuuray waxaa ka qaadanaynaa in diinta lagu sugnaado xilliyada duqyaanka iyo xadgudubka iyo cadaabku uu qofka ku yimaado muslimka ah nabi muuse iyo fircawn markii ay yidhaahdeen markaasi فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون مركي اسكم مغدين لأن هلبي اللي سوقع قال كلا إن معي ربي سيهدي كبداية إلى هباء إلى الجرة أو يهلونين إليه وحيدنا إن تلمامسا حالتها أدق عديدك كسقنا أشياء مركا ديتا مركا لو سقنا أيو حالتها قف كل جود بيشرو يقف كل الرادين أيو سيعرفها كل واحد جلسوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعد مركا هجرودي قصص أنبياء نارميدا مركز لهذا لا تحزن إن الله معنا مركا أبو بكر كويري هذين سوري لهايين ولقوا أكون أرك لهايين ما ظنك باثنين الله ثالثهما محط ما لنا صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا لأن سبحانه وتعالى قرآنك وككورم مؤمنين تاي هاي المامين السجنادين يوم الأحزاب إلى مركا ثبات مركا إلى مركا لي مادين أو أي لهذه مركاسي إيمان يأكلسي خير مركاسي ولاد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وحن وحوي وحو إلهي مركا رسولكم وهو بلان قاضي أو حيلها مركا مهمك أي مركا متى وحا كم بدأ تلمامها أما حوجياتها إنه قف كسرنا هذا قف إلهي كحنا هذا إلهي بريو صفات كمؤمنين تأوي قعمه ليس روح لتاكتاك ربنا لا تسوق قلوبنا بعد إذ هديتنا عن اللي حلم إلهي أنت ترسيد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا إلهي نغشو صبر يا كيس كل بدها يجنا عتك نبي دعوك صباح كمدها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني لها قلوبتها قد يا قلبي جديد مركز وحكمها وصائشها حسك إلهي ذكرك وكل أقوى كمدها إلهي سوى ذكر المؤمنين الله هذه جهادك أيوه فرد ذكر يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا مرك إيمانك لو مرك كحلة كل طاعة كيست واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إلهي إن بدل حصى مرك الإيمان بدل لسان وحيلاده وحيالها أمهم أهل العلم والجهاد لوكال ما يصدق وحسك إلهي وهي ثبات مرك كينيا نكي نبي قوي مدايا كويري إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به ويقبض الإسلام كي حاليش يكتا وحن قاطر قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عرفها مركزتا إسلام مركاك قينات ديري إليه حسك إلهي نبي يوسف الروح طماني طمعطي أو حما أي كدونتي حقوق أرضي قال معاذ الله إلهي بان قبصري إلهي بان مقنقلي إذن فتك دباتوي مركي مادان كسغناشا حقا وحا أساسه حسك ذكر إلهي يا مركا كمدا حلقا إنه كترنو زمن كان إنه مرينو أو دباتوي عالم كسو كردين أو هدي الله يلاهدو كوفيد 19 وجرو أما كورونا أو جرو وحيالات تحسنات كأي قفك مسلم كجبت باديو وأتكارتوي يحسك إلهي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نقول على أساس صدح جنك إلى صبحي يصدح جر قلبتي وحوي على بجرو نقول على أساس سلام وحوي المركة إخلاصك وأقول الله أحد يمعودتين كوقف آخر صدح جر صبحي هي قلبتي وحستوي كفلانية نقول أسباب الشرع قال الله إيمان إن لنا فري أسباب السعي قال هذا التحصنات ذكره وقصنا أشياء الدين توحيد أمي يسمى كاس بكلية waxa kamida oo ah kamarka lixaada inuu qofku kursoonaado dariiqan ku taagan yahay dhibaatooyin baa jiray tabaat man ka hadlanaayay dariiqan uu yahay dariiqii xaq ah inuu qofku markaa ku sugnaado dariiqii ambiyada iyo rususha sidiiqiinta culumada saalixiinta shuhaadada inuu qofku dareemi lahayn doortay ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وحلو صيرنا كتابك كوانا دورنا أدورنا كمدا waxaa kamida wasaa'ilka muhiimka ah oo qofka muslimka rag iyo dumarba inuu qof diinta u shaqeeyo faraaqu siisa waa khatar inuu qofku majaaladka dacwada ee kala duwan inuu wadiifadii ambiyada iyo rususha ah inuu diinta markaa u shaqeeyo oo daaci noqdo
oo awoodiisa wuxuu kari karaya markaa inuu qabto ayaa markaa ka mid ah. ka sideedaad inuu qofku uu la joogo xayndaabka dadka ku sugan diinta ku sugan mujtamacaadka haddii la yidhaahdo inxiraafay inuu qofku iska ilaaliyo mujtamacaadka ama dadka ku sugan islaamka iyo manhajkiisa inuu yahay qofku markaa mid la nool. nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi inna min annaasi naasan mafaatiixa lilkhayri magaaliiqa lishar dadka waxaa ka mid a dad khayrkana furayaalo ah sharkana xidha. markaa qofku muslimka ah gaar ahaan daa'irka dhalinyarada zamankan aan ku jirna rag iyo dumarba zamanka teknolojiyadda iyo markaa ay haysato waxyaalaha kala duwani inuu qofka muslimkii ku dadaalo ku sugnaanshaha diinta waa inaanu culimada ka fogaanin dadka saalixiinta ee toosan dadka ducaada ee mu'miniinta caalamka waxa soo maray dhibaatooyin kala duwan baa soo maray rag buu ilaahay ku sugay dadka tutubta kaasoo dhan dad ilaahay ku badbaadiyey. imaamkii caalimka muxadidka ahaa cali ibn al-madini raxmatullaahi calayh ayaa waxa uu yidhi ilaahay diinta wuxuu ku xoojiyey maalintii riddada ee dadku diinta qaar ka baxeen abubakr sidiiq yowma almixna markii dadka la imtixaamay khalqul qur'aana wuxuu ilaahay dadka ku badbaadiyey uu diinta ku xoojiyey axmed ibn xambal ayuu markaa qofku dadka sugan ee xaqa ku taagan inuu aanu ka fogaanin uu garab joogo ayaa markaa muhiima. qodobka sagaalaad wasaaisha inuu qofku mar kasta au urursado akhlaaqda teeda wanaagsan ee ku sugaysa markaa waxa wanaagsan waxa ugu horeeya markaa sabirka ugu horeeya inuu qofku saabir noqdo. dhibaatooyinku waa fara badan yihiin oo ay fitanku waa kala duwan yihiin inuu qofku diinta u sabro u adkaysto. nabigu calayhi salaatu wasalaam wamaa ucطiya axadun caطaa'an khayran wa awsaca min asabr xadiis soo saaray bukhaari qofna lama siinin siin ka wanaagsan oo ka ballaadhan sabirka iyo adkaysiga. qaybta saddexaad haddaan soo sheegnay ku sugnaanshaha ahmiyadda ay leedahay iyo waxa loo adeegsanayo waa meelaha la sugnaanaya halkee looga baahan gaar si gaara qofku inaanu dhaqdhaqaaqin walbahaar la imanin uu diinta ku sugnaado fitanku markay dhacaan. fitankuna nooci doonta ha noqotee waxaa lagu imtixaami karaa maalkaaga waxaa imtixaan kuu noqon kara jaahaaga muuqaalkaaga magacaaga xaaskaaga ubadkaaga iyo awlaadaada ayaa kuu noqon kara dulmiga iyo markuu dhaco iyo duqyaanku iyo iman karaa ثباتك من وقف كسرنا هذا حلقة مركزي فتنك زمنك منهج كسرنا توصنانت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وعكبدا قال منهج تيوح كسرنا هذا كرمشاقي ثباتك ومهم سن حلقة كسرنانيو وجيريدة اللي وقف جيريدة كنت ماتوا إنه حق كسرنا هذا توحيد كل أنتم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إلى سبحانه وتعالى سوى استقامة مامية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تعزلوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحانه دينت الله سبحانه حليضة أدق ومد مهمة صوصة القرآن كالسنة نية محمدنا ساسة المامية يتجاربته مضى مسلمين التاريخ كيدور أنه كاهنه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيه. دكتور كلمة نافعة ونوتي الله ينوافق على ما تنبه isagana Allah ugu daro miisaanka xasanaadka laba su'aalood baynu doctorka weydiinayna oo mowduuca la xiriira doctorku wuxuu sheegay xilliyada la sugnaanayo iyo waxyaabaha lagu sugnaanayo ama asbaabtii wasaaisha la adeegsanayo doctore meelaha la doonay qofku inuu ka fogaado si aanu fitankaas aanu ugu dhicin bismillaahir rahmaanir rahiim marka uu qofka muslimka hawlahan ay dhibaatooyinka yimaadaan meel kasta oo khayrka iyo wanaagga ka durugsan baa loo baahan qofka muslimkii inuu iska ilaaliyo wuxuu ka fogaanaya gaar ahaan daa'irta dhalinyaradu مثلا مواقعda ama website-da ama kutubaha ama qoraalada khatarta leh ee qofka leexinaya inuu qofku markaa ka fogaado ee markaa muhiimadeeda leh oo meelaha qofka muslimkii oo iska ilaalinayo saasa markaa waxyaalaha noocaas midhan ayaa laga marin qofka markaa iska ka digtoonaado hadiiba doctor qofkani uu fitankaas ku dhacay oo garwaaqsan inuu fitan ku jiro sidee buu markaa fitankaas uga bixi karaa uga fogaan karaa xaaladiisii fidriga ee caadiga ahaydna وقفك نقص النقطة كره. وسؤال هذا مهم وين وقفك مركز ترامه مسلم كلاه فرق باب لا باب التوبة وقفك مسلم كلاه فرق إلهي وصل نقطة توبة كأنك
iyo noqoshada ilaahay loo soo noqonay qofku markuu isdareemo waa inuu meeshii ilaahay ugu talagalay iyo goobihii ilaahay ugu talagalay wanaagga waa inuu kusoo xidhmo astiqaya saaxiib xumad hadduu leeyahay waa inuu bedelo dhaqanku samayn jiray noocuu doona ahaade maadaama isdareemo waa inuu faraha ka qaado waa inuu joojiyo gebigooba haddii waxaas wax jira yihiin oo yaalana waa inuu ama uu ka takhaluso ama uu burburiyo ama uu tirtiro si uu uga fogaado markaa uu iskaga ilaaliyo si gaara waxay tajaaribtu inoo tilmaamayaan iyagoo noocaas oo kale ah had iyo jeer dhibaatooyinka ku dhaca qofku iskagama dhaco cid baa u keenta ciddaa u keenta oo halista badan ku keentay waa inuu ku dadaalo inuu markaa ka takhalusu bedelo waxaan arrintaa tilmaamaya ninkii boqolka dilay waxaa lagula taliyey ninkii caalimka u tegay inuu dhulkiina bedelo dadkiina bedelo meel wanaagsana tago geeriduna markaa saas ugu timiday markii lagu doodana waxa loo xukumay inuu yahay nin wanaagsan oo soo noqday saa daraadeed dhul bedelka iyo ag bedelka iyo dad bedelku waa meelaha ugu muhiimsan qofku ku badbaadi karo daawadayaal xalqadeennii shanaad ee barnaamijkii noo dhow culimada intaas ayaynu kusoo afmeeri doonaa لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير